calanka.com. waxa guud oo shacabka u sheegaysan seminaarka hadda noo dhamaaday dib inay u soo laabtaan tuhumada noocaas doorashada hadda waxaa halkaan nooga socda tababarkan ujeedadiisuna waxay ahayd annagu intaanaan shaqo bilaabin inaan isdhisno hay-ad ahaan inaan isdhisno qof ahaan inaan isdhisno in aan baranno shuruucda kala duwan waxaa quburaa nala joogtay waxaa nalooga casuumay South Africa haweeney 14 sano ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo waaye aragnimo badan qabta si fiican aan uga faa'iideysano waxayna ka mid noqon doontaa tallaabooyinka aan qaadayno oo aan ku dhisayno annaga dad ahaanteena si qurux badan ummadaan ugu shaqeyno. The UN has an electoral support project whereby we try to assist the newly established Election Commission in terms of developing a knowledge of electoral administration and capacity development with the Election Commission and institutional development to support that very important institution that's responsible for delivering elections in the future in Somalia. calanka.com.